afarta qaybood ay ka kooban yihiin ciidamada qaranka ayaa maanta si isxilqaan ah waxay ugu sameeyeen olol nadaafadeed iyo dib u dayactir qaar ka mid ah goobaha danta guud ee dalka oo ay ka mid yihiin baarlamaanka Xabataako sayidka dhagaxtuur SYL iyo goobo kale oo muhiim ah. Isxilqaankani ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay qaar ka mid ah ardayda dugsiga sare ee dalka. waxay sheegeen ardaydani in qof waliba muwaadin ah looga baahan yahay in dalkiisa uu dhisto. maanta waa ku faraxsanahay in aad dalkeena dhisano farxad ayay noo tahay dalkaaga inaad dhisatid maanta aad qaadaysid qorshe meel taal misqadax meel taalo qof kale oo cadaan inuu ku imaado ma qaada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasaaraha Xasan Cali Khayr waxa uu hambalyeynaa horumarkay gaareen oo yaani Soomaaliya hiigsiga iyo meeshay geeyeen ugu hambalyeynaa الله والله دلكي إن دشت أنا لاقي ربا قفنا دشة سماله وحسايد وعملينا أسكرت أنا قدير جلسة إن دشنا دلكي أنا وطليها يطلياشان كجران وحسايد وعمليا مدحوينها يرسل سارة أو شان وضان kormeer saddexaad Sahal Xaashi Cali oo kamid ah ciidamada booliska iyo xidig xooga Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud oo kamid ah ciidamada xooga dalka ayaa waxay ka warbixiyeen isxilqaankani ay ka wadeen mudooyinkani magaalada Muqdisho. waxa aad maanta farxad noogu ah shaqadii aan bilownay isxilqaanka anagoo ka ah ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan sida booliska militariga asluubta iyo nisa shaqadii feeski koobaad aan ku guuleysanay waa u jeedin waxaan qabanay taasoo dhiirigelintooda nooga timi iyo amiradeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah oo horeeyo ra'iisul wasaaraha qaranka hadda waad aragtaan shaqada waxaan ku bilownay isxilqaan kelmadaas markaan idin turjumo isxilqaan waxa weeye waa isu dir shaqada adigoon lagu dirin waa dalkaaga ahmiyad iyo waqti iyo chance iyo fursad si waxa weeye dalkaan isu taagnay anagoo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan sida xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo ciidanka nabad sugidda qaranka ee loo yaqaan NISA midowgii aanu sameynay oo aan isxilqaan ku sameynay waxa ku soo biiray ardada dugsiyada sare ee magaalada caasimadda Muqdisho. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliya Muqdisho.